على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل خيرك كفائدة سنة كلن كان خيرك بدن كسابسا شن وردي oo aad joogtayso oo aad ku ilaalinaysid naftaada, gurigaada iyo carruurtaada, haddaad nin tahay iyo xaaskaaga, haddaad haween tahay qofka daawanayo ninkaaga, haddii hooyo iyo aabba aad tihiin carruurtiinna iyo idinka. Shantaas wardi waxay kaa ilaalinayaan shan khatar oo maalin walba bini aadanka u waajaho. Shantaas khatar oo maalin kasta bini aadanka u waajaho waxa waaye: kow, markaad guriga joogto, shaydaan ayaa guriga imaan kara, soo degi kara, wax idila cuni kara, wax idila cabi kara, musqusha idila geli kara, idila seexan kara. Marka shaydaankii oo jilliga aan ka hadlaya halkaan aan la arkayn, inkastoo shaytaan insigu uu imaan karo, labadaba shantan wardi waa kaa xijaabayaan. waxaa kaloo shantan wardi ay qofka ka xijaabayaan markaad guriga ka soo baxdo. malaa'igta ayaa kula soo baxayso, waa ku ilaalinaysaa. waxay kaa ilaalinaysaa shan ay kaa ilaalinaysaa. kow, waxay kaa ilaalinaysaa banaanka markaa u soo baxdo qofaa ku xasdayo, xasadku way kaa ilaalinaysaa. banaanka markaa u soo baxdo qofaa raba inuu ku ilaysto, ishi shantan wardiya kaa ilaalinayso. markaa banaanka u soo baxdo qofaa rabo inuu ku weeraro ama ku dhibo, wuxuu doona ha kugu dhibo, ama gacan ha kugu dhibo, ama qalab ha kugu dhibo, taasna number 3 way kaa ilaalinaysaa. waxay kaloo kaa ilaalinaysaa markaad banaanka u soo baxdo, waxaa jiro dad rabaan oo shaydaan la shaqeeya ama iyagaaba shaydaana inay ku duubsadaan, caqligaaga inay raad ku yeeshaan, ay ku duubsadaan. marka wardigan wuxuu kaa ilaalinayaa inuu qof ku duubsado oo waddadii shaydaanka uu ku duubsado, oo waddadii ilaahay uu kaa soo leexiyo. 5, markaad banaanka u soo baxdo, waxaa suurtagal ah markaad banaanka u soo baxdo waxaa suurtagal ah in shaqo aad aado, ama waxaa suuragal ah inaad suuq aado, ama waxaa suurtagal ah inaad waxbarasho aado. adi goobaha ka mid inaad aado. goob kastoo aad tagto waxaa suurtagal ah waxaad u tagtay dad raba ama shaytaanul ins ama shaytaanul jinni in waxaas aad hesho. haddaad suuqa aaday, wixii aad rabtay waxaa jira shaytaanul ins iyo shaytaanul jinn aanan kula rabin inaad hesho. haddaad shaqo aaday, goobta shaqada aad joogto kuwa kula shaqeeyo ama madaxda qayb ka mid ah ayaa waxaanan kula rabin hadafkaaga shaqada inaad gaarto oo shaqadaada aad ilaashato. haddaad waxbarasho aado, jaamacaddii ama kollejkii ama iskuulkii, waxaa suurtagal ah hadafkii maalintaasi aad heli lahayd oo waxbarasho cid kaa hor istaagayso oo aanan kula rabin. intaas shantaana kaa hor istaagayso. shantaas wardi marka maalin kasta joogtayso. kow waa suuratulbaqara. manaha suuratulbaqara rasuulku wuxuu alayhi salaam guriga lagu akriyo shaydaan ma soo gelayo.
riwaayadka rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gurigaasi raadkuma yeelanaya albatala waa sixirka waa hadduu sixir ku jirana wuu burayaa haddii sixir loo soo wadana ma soo gaarayo marka suuratulbaqara oo dhan haa suuratulbaqara oo dhan haddaadan hal maalin aqrin karin 2 maalin ku dhamay 2 maalin haddaadan aqrin karin 3 maalin ku dhamay intii tabartaada ku dhamay haddaan soo koobo 2 maalin kasto marka qayb ka aqri ilaa ka dhamayso suuratulbaqara 2 maalin kasta joogto u aqri aayatul kursi adiga iyo ilmahaaga wada akhrista hadaa ilmo iyo caruur aad leedahay iyo xaaskaaga haddii xaas keliya aad leedahay adiga xaaskaaga wada akhrista haddii keliga aad tahay keliga akhriso suurat aayatul kursi rasuulku noo sheego acdam aaya fi kitaabillah waana aayadda qofka ka xijaabaysa wax walba shar ah 3 almucawadataan labada suuradood oo rasuulku yidhi calayhi salaam oo wada socday markii la soo dejinayay oo 11 aayadood ah oo nabigu uu yidhi calayhi salaam labadan suuradood oo wada socota culayskeeda suurad la mid ah ma jirto markaas wuxuu ka hadlayay rasuulka calayhi salaam say qofka u ilaalinayaan waxay ka ilaalinayaan ishi waxay ka ilaalinayaan xasadki waxay ka ilaalinayaan sixirki waxay ka ilaalinayaan nooc kastoo shar ah oo qofka dhaawac gaarsiin karta jirkiisa ama maskaxdiisa marka saddex jeer ku celi waxaad ku dari kartaa suuratul ikhlaas marka israacin kartaa 3 suuradood oo 3 jeer akhrinaysid 3 midda saddexaad wax walba intaad guriga joogto ama markaad ka baxdo wax walba khayr ah waad qabanayso ku bilow bismillaah oo xunaysid bismillaah ka bilow haddaad xawaysid bismillaah ka bilow haddaad halmaanto bismillaah calaa awwalihi wa aakhirihi bismillaah waxa waye magaca ilaahay ku bilow shaydaanka markaas uu ka tagayo kulma cunaayo ma kulma cabaayo markaas saxanaysa bismillaah ku saaxo bismika allaahumma amuutu wa axyaa dheh markaas shaydaan kula saxanayo isku markaa galaysa intaad galin bismillaah dheh allahumma inni acuudu bika min alkhubuthi wal khabaa'ith marka midda saddexaad waxa waaye wax walba bismillaah ku bilow haddaad ducadoo dhammaystiran akhrin karin markay ugu yartahay bismillaah dheh 4 ha ilaabin markastoo musqusha aad galaysid maadaama guri shaydaan uu yahay in lugta bidix aad ku hormarto horta bismillaah inaad dhahdo ducadii musqusha lagu galayo akhri allahumma inni acuudu bika min alkhubuthi wal khabaa'ith ilaahu waxaan kaa magan galay labada nooc shaydaanka kan jinniga oo labka ah iyo shaydaanka jinniga ee dhediga ah labadoodaba meesha maadaamay ku jiraan inaad iga hayso oo aad shartooda iyo aragtidooda iyo inay dhaawacaan oo dhan aad iga xijaabto marka waxaa dhacaya markaad ducadaas akhrisato allahumma inni acuudu bika min alkhubuthi wal khabaa'ith kadib markaad gasho lugta bidix aad la gasho waxaa dhacayso 5 waxyaalood cajaa'ib ah dhacayso kow horta shayaadiinta ku jiraan musqusha oo dhan waa loo digayaa in qof mu'min uu soo galay 2 indhaha laga wada xirayaa cawrada jirkaaga ma arkayaan 3 awoodaha dhaqdhaqaaqa oo dhan laga xirayaa ma dhaqdhaqaaqi karaan in ay ku soo gaaraan ama ay ku taabtaan ama najaasi ugu furdhiyaan 4 waa la xabisayaa ilaa aad ka baxdo tanaafad waxa waaye muddo ahaan loo xabisayaa intaad meesha ku jirto hawsha ka dhamaysanaysa 5 suurtagal ma ahan markaad dhamaysto hawshada soo baxdo inay ku soo daba raacaan wax xirxiran yihiin cagsigeeda dhacayo qofkii oo duco la'aan ku gala musqusha waxaa dhacayo haddii ducadii aad halmaanto bidix aad gelisid musqusha aad gasho kalow waxay ku ciyaarayaan xubnahaaga taranka 2 najaasada meesha ku subaysa ku ciyaarayaan najaasada kusoo gaartaa laga yaabaa 4 cawradaaday fiirsanayaan 5 way kusoo dhex geli karaan ama raadi kugu yeelan karaan ama way ku hujoomi karaan marka intaasoo dhib ay ku gaarsiin karaan waxaa kaga magan geli kartaa inaad akhrisato ducadaasi allahumma inni acuudu bika min alkhubuthi wal khabaa'ith sida nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wardiga 5aad waxaan wardiga koowaad baqara wardiga 2aad aayatul kursi 3aad
سورة الفلق سورة الناس هذا كدر سورة الإخلاص أفراد بسم الله وحول بقول مركات جوكت أما مركات بحيث أتقبل وضو يبدك للدعاء دعاء دي مسكشة إن هذا الحلم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.